waxaa laga yaabaa inay kuu sheegaan inaad wax aad u qashid jinka si ay u oggolaadaan inay ku caawiyaan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أخذت كحنا channel كنا حمد رقني كوسود وهذا موقع عصب. سحرك واشي جرا وحنا لا حرير يا جنك. سحرك وأهرد النفط هذا جنك سي وسمي شيء سجى أفضل برسلنا نقول يا بني آدم كعجيب. وحنا جاي بأن أردت السحر لك وسعنا يعركم. عمبا شيء وسنهين كعنتك وهين. عرنتاسي وحقمنا يا عياء جنك ما دام أين أركن أنه شيطانك أما بالجنك waxa uu qaadayaa sixroolaha si ay inoogu muuqato shay la yaab ah. haddaba sixirka isticmaalidiisu ma banaana, mana kulmaan inaad muslim tahay haddana sixirka isticmaashid. sababta ayaana ah in isticmaalada sixirka ay kugu khasbayso in qof aan Allah ahayn aad caabudid. haddaba xilligii Nabi Suleymaan calayhi salaatu wasalaam, Allah waxa uu awood u siiyey Nabi Suleymaan inuu xukumo jinka, taasi oo cid ka horreysay cid ka dambeysaba aan la siin. sixroolayaashu ma xukumaan jin, balse jinka ayay ka hooseeyaan oo ay caabudaan, kadibna waxa uu sameeyaa wixii uu rabo. Allah waxa uu quraanka ku yiri Nabi Suleymaan ma uusan gaaloobin, balse jinka ayaa gaaloobay. iyaga ay ahaayeen kuwii baray insaanka sixirka. sixirka waa shirki, waxauna Nabiga sallallahu alayhi wasallam ku sheegay xadiis saxiixa in qof walba oo sixirka sameeya uu ku dhacay shirki. sixirku waa qaybo badan yahay. qayb kamid ah waa inaad jinka u adeegsatid sidii uu soo qaadi lahaa qof kale maalkiisa amaba waxa uu leeyahay. nooc kale ayaa ah in jinka loo adeegsado inuu dhex dago qof kale jirkiisa oo uu xukumo, taasi oo ku badan dadka Soomaaliyeed. nooc kale ayaa ah inaad soo qaadatid qof timihiisa kadibna aad kula xirtid irbadooyin iyo arrimo kale. nooc kale ayaa ah inaad u isticmaashid jinka inuu faaliyo mustaqbalka. dhammaan kuwa bartay astrology-ga oo ay kamid yihiin kuwa xidigaha ka fiiriyo mustaqbalka amaba isticmaalada dhalada cad si ay u sheegaan mustaqbalka wixii dhici doona, kuwaasi dhammaan waxa ay bartaan waa sixir. Nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa uu sheegay in qofku taga faaliyaha aan la aqbali doonin salaadiisa 40 bari haddii aad aamintidna had ka baxaysid diintii oo la yimid Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. maxaa yeelay faaliyaha waxa uu keenay warka waa jinka, kaasi oo ka soo xaday malaa'igta oo iskula hadlaysay arrintaasi. balse markii uu jinku u sheegayo faaliyaha waxa uu ku daraa kumanaan beenood. sababta aad u gaaloobaysid haddii aad arrimaha samaysid ayaa ah inaad rumaysay in faaliyuhu og yahay waxa dhici doona. Allah quraankiisa waxa uu ku yiri, Allah waa mid ka og waxa dhici doona, umana ogolaado cid kale inay ogaato waxa dhici doona. naftaada weydii, haddii ogaan lahaayeen mustaqbalka maxay lacag kaga qaadanayaan? waxay ahaan lahaayeen taajiriin iyo madaxweynayaal, balse si ay lacag u helaan dadka ayay khiyaamaan oo waxay iskaga dhigaan dad wax ka og mustaqbalka. haddaba ka muslim ahaan sidee iskaga ilaalin karnaa sixirka madow? gaaladu waxa ay leeyihiin waxa la kala dhaho sixirka madow iyo sixirka cad, taasi oo ay ula kala jeedaan in midka madow uu xun yahay midka cadna uu wanaagsan yahay. sixirka madow waxay u isticmaalaan inay dadka ku dhibaateeyaan, midka cadna waxay u isticmaalaan inay kaga hortagaan dhibaatada sixirka madow. haddaba labaduba waa dembi haddii aan nahay muslimiin, maxaa yeelay marba sixir hadduu meesha yimaado jin ayaa ku tacalluqa oo jinka ayaa la adeegsadaa isaga oo la caabuday. waxaa laga yaabaa inay kuu sheegaan inaad wax aad u qashid jinka si ay u oggolaadaan inay ku caawiyaan. qaabka ugu fudud ee aan kaga hortagi karno waa in Allah aad u laabatid. akhri suuradaha suuratul naas, suuratul falaq, maxaa yeelay waxaa loo soo dejiyey inay ka hortagaan sixirka. markii Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam la sixray waxa uu ku akhriyay gacmihiisa labadan suuradood kadibna jirkiisa ayuu mariyay. qaabkaas ayaan uga badbaadi karnaa. haddaba sixirka ma baran kartid, ma u tagi kartid sixiroole, xitaa ma arki kartid arrimo ku saabsan sixirka oo kugu qancinaya inuu sax yahay. haddii aad samaysidna waxaad ka soo horjeesatay diintii Allah subxaanahu wa tacaala. intaas ayaan uga tahay muuqaalkeennii maanta. intaa ku kulmi doono muuqaalka lamida waxaa idinkaga tegay. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.